شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا qofku hadduu dhaqaale kaa fiican yahay wax walba miyuu kaa fiican yahay hadduu aqoonta maadiga kaa badiyo miyuu kaa badiyaa nolosha kale miyuu moodalka yahay bini aadamku uu ku daydo caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu ama ha xumaado ama ha fiicnaado waa in cidi uun danka leedahay misaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhoweyd 11keedii anigoo toronto jooga ayaan tv shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la waraysanayaa ninka la waraysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan United Statesku Maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaaniin underwearka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta AIDSka maalinta waxa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxiix ayuu soo ururiyay wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaasoo 1 milyan gaadhsiiyo si uu kaysku u noqon karo kays isturtiingahoodii yani koongreska la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan daraasayey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaalo fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho maraykankaan xisaabiyey waa $13 billion baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeyo buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiiba marka marketkaasaa rabaa inaan qabsado buu leeyahay si uu marketka u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macno kama leh inagunbaa wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyey waxaa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nebi muxamedin mise carruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa dabeetana eriyaa la yidhaahdaa 2 birood dhex geliya soo intaa maaha intaasi nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana 2 birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxaa la yidhi ninka kani caaggaa la neefeeyey 2 birood la dhexeeyo $40 milyan oo dhaale ku qaataa $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira Western Europe dhalinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968 kii ardadii jaamacaadku
inqilaabadiyadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar laba thawra alfaransiya dib loo inqilaabo. waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ay ka faa'iidaysteen dhallinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyey. laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxaa loo fakeray suuq cusub in loo sameeyo. sport and music baa la geliyey. qofka dhallinyarada waxaa la yidhahda waa caalamkan siyaasadani waxaan ka bax caalamkalaad adigu leedahay. caalamka aad leedahay waa maxay? ama waa music damdamtaa dhegayso iyo un dadkaa qaylinaya oo weliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literatureka haddii la eego dadkan qaylinaya oo dhamme cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro. waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray. iyo kuwaa la yidhi kubadda erya. kubaddu waxaa laga yaabaa inaad isleedahay war mustafa maanta ma sportigu doonayo inuu wax ka sheego ama uu ceebeeyo. qofka bini aadamka ahi inuu jidhkiisa kala bixiyo oo dhisa waa wax fiican. caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican. waagay kubaddu wax caafimaad un loo adeegsada ahayd hobi bay ahayd. hobiga maxaa la yidhahdaa? qofku shaquu haystay waxaana hobi ahaan buu samayn jiray. ma jirin nin yidhaahda anuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan usoo kallaho lacag laygu siiyaa ma jirin. qofku shaqo kale uu kallihi jiray. dhakhtar buu ahaa, askari buu ahaa, booliis buu ahaa, siyaasi buu ahaa, shaqo kaleu haystay. kubadna waa ciyaari jiray. kubaddu markaa waxay iska ahayd nooc entertainment yaroo fudud iyo inta ugu badan le wuxuu qofka biniaadamka isku dayo jidhkiisa inuu ku kala bixiyo. laakiin kaa waa laga saaro waxa la geeyey suuqii dhaqaalaha. waxaa laga dhigay shirikaadka ugu waaweyn ee maalqabeennaa. waxaa laga dhigay inamadan yarare ka dhex boodboodaa in mid waliba 40 milyan qaato. waxaa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunidoo dham ay tviyada hor fadhida la ydhaha koobkii dunida la cayaaraya. koobka dunidu muxuu yihi? usbuuc kale in la hor fadhiya la ydhaha koobkii yurub baa la cayaaraya. dadkii oo dhan koobabay daawanayaan. waayo waa models loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan. waxaa laga yaabaa adigu maanta inaad adna isweydiinin subaxii marka iskuulka isugu timaadamba waxaad tidhahdaan xalay yaa badiyey liiga kee sarreeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sarraysa. iyabaa lagu muransayay Real Madrid baa wada. maxaa waxaan keenay? waxa keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-gii qofku. waxaynu u baahanay inagu inaynu isweydiino identity-ga kumaatay. man ana inaad marka hore isweydiiso. kumaanahay? maxaan u noolahay? maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto? maxaan u joogaa? haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa. yaa model ku ah, yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa. waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima. qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala. waxaad garanaysaa noloshu inaad wakhti yar joogayso. wakhtigaa yar aad joogtaana inuu yahay wakhti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato. waxaad og tahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhiro la imanayo. wakhtigii yar ayaad joogtay wixii aad qabatayna in lagugu xisaabin doono. yaa model ku ah markaa? yaa tusaale ku ah? ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah. ilaahay subxaana wa tacaala intuu ambiyada ka soo warramay buu wuxuu leeyahay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih. kuwaasi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa kuwii alla hanuuniyey. ee fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku daya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. hanuunkooda yacnii suluugooda, dhaqankooda, qaabkay u fakerayeen, qaabkay u cibaadaysanayeen, qaabkay nolosha u arkayeen, siday u fakerayeen iyaga kaga dayda baa ilaahay yidhi. ilaahay qur'aan wuu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la ydhahda akhristoo faahfaahsan. laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kastoo uu soo dejiyey rasuul baa la soo raaciyey. rusushu maxay qabanayeen? waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga, tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco. waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koow waxaan la faray inuu yahay wax la samayn karo fii maqduuri lbashar. bini aadamka awooddiisa wax ka mida inuu yahay, inuu ariiqa saxa yahay, qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay, ciddii tilmaami lahayd.
walidalik waxaynu ku celcelinaynaa leenahay waa inaynu si fiican u daraasaynaa u garannaa ciddaynu ku dayan lahayn ciddaynu ku dayanaynaa waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alle dad abuuray waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul ummad kasta kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhami uu ku dayanaya inuu noqdo waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay qofkaan ilaahay garanaynin waa wax ma garato qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax ma garato afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa aqoonta waxay ka warramayso iyo waxay tarto socaynkaa maaha inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa haddii iminka laydin yidhaahdo combyuter science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30,000 oo karawne bishii wada combyuter science baynu gelaynaa laakiin hadduu marketku isbedelo laydhaahdo saxaafaddaa ka qaalisan saxaafaddaad u guuraysaa saxaafadnimadu iyo kombyuuternimadu ma ahayn fiicnaanta laakiin marketka waxay ka jaraysay baa ahaa aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysa iyadaa ugu qaalisan oo ay jannay goysaa yacni life sbankaaga markaad eegto nolosha intaad noolaanaysaa atwaar baad soo maraysaa wakhti aad dhabarka aabbaha iyo hooyadaa ku jirtay wakhti aad caloosha hooyadaa ku jirtay wakhti aad dunida korkeeda sarrayd wakhti aad xabaal ku jirtay kadibna waad ka soo baxaysaa waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar noloshaasoo dhan marka la isku daro diintu intay ka tartaa inta ugu qaalisan bay ka tartaa hadday tahay noloshanaad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolaato iyadaa tilmaamta hadday ta aakhiro tahayna waxa ugu qaalisan iyadaa keenta daatada ay ka warramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato quraanjada cilmi ku saabsan iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan waxa kaloo la mid ah cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barataa wuxuu ka qaalisan yahay makhluuqaadka cilmiga ku saabsan sida daraaddeed waxaynu u baahannahay inaydan isu arag minority yaryaroo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka sidaada ku tuko waxaad sileedahay talo xaggaad ku tukataa markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaha musqusha agteeda aan ku tukanno jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa sababtu waa maxay waxan baad la khajilaysaa kula yayliita waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay safkii sax aha inaad taagantay iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person dhaqan ahaan aqoon ahaan waxa la baranayo wax kastaba inaad adigu tahay the right person idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin inaynan jabin inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin aan soran xijaabka waxa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysaa inaad jiqis ka soo siiso iskuulka markaad tagaysana mid la yara modify gareeyo dhanna surwaal ka yara ah dhanna funaanad yar ka ah meelahana aad masar yar ku duubto waa modification xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin sidii ugu wenye u qaado aragna you are the superior adaa ugu sarreeya dadka waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay the right way baa taagantay mithaal basiitan ku siinaya saxaabadii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo mooska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu
ilaa iyo laga gaadhayo China iyo Indonesia iyo waxa la mid ah dhulal badan oo dhulalka ka mid ah kumay furanin dagaal dhulal badan oo ka mid ah waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakarayeen iyo waxay basharka u keeneen waxay ku furteen oo kaaga filan Rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii Rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii Persia Iran ciidamadeedii ayaa waxa la isku galay Qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano waa intaan madaayina Ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hal wada hadlee Sa'd ibn Waqqas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Aamir Ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku tala galay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxa la dhigay red carpetka wada taqaan Soomaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacas la dhigo Sooma taqaanin ay soo dul socdaan red carpetiskaas meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan oo soo socday waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig wuxuu ku yidhi anigu idinma imanay idinka ay yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita haddaan rabtaan inaan u tago waa u tagay haddii kalena waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kanima haddada ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqmaa saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama damayso wax ma khiyaameeyo haddana wuxuu yidhi hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita haddii loo baahan yahay waan u tagaya boqorka waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diidi inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa faraskiisii yaraa buu soo dul eriyey baa la yidhi qadiifadihii red carpetka ahaa boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigo mid ku xidhay bay yidhahdaan culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaa su'aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakarayaa dadkan magaaja wadankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wada dee waxbaa la idin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarro dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray professorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu samaa warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay sida awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigayaa adigana waxaa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay waa wax faal xun waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyadaada kumaad tahay waa inaad garataa adigu muslim baad tahay kuwa kalena waa gaalo taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa
taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan taa macnaheedu waxa weeyaan adaa marada aad sidataa maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato adaa moodhalkii la rabay in la buunbuuniyo iyaguna way qaawan yihiin waa meel laga naxaabay joogaan waa hilib wadhan meel aad looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay horkacaysay ee ariiqa sawaabka rabtay inay gaadhsiiso waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo bilaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisaa isqaawin ku faanaysa adigu maxaad mare ugu faani kari weyda yacni say macquul u tahy hadduu kani gaalnimo ku faanayo ilaahay ma rumaysnay ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanayo ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyda geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiicantahay adoo janno arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiicantahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda ku soo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyey ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhiibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida moodhal u noqoto inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee moodhalka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini'aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama combyutar ha noqdo waa wax bini'aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka kaljarka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adigaa macallin inaad u noqoto lagaaga baahaya waayo adaa tii saxa ahayd haya marka adaa lagaaga baahaya inaad dunida macallin ha noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara waxaan ku soo koobayaa rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka biniaadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo hadday qiyaadiya maamul tahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay nebi daawuud nebi sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamiso dowlada xukuntay hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan qur-aanku wuxuu ka waramayaa rusul hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaane xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo ummad xuquuqdeeda loo raadiyo rusul baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya raadinaysay nebi muuse waxaa ilaahay ka warramaya wuxuu ka hor yimi fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya le anaa rabbi idiin ah
ilaahayna uu soo diray inuu reer banu israa'iil ka xoreeyo an irsil maciya bani israa'iil haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo suu noolan laha ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay nebi ayuub baa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badani heshay haddaad cidhiidhi iyo mashkiladii cid ay qabsatay iyo qaabka loo noolaaday rusul baa ilaahay tilmaamaya nebi yuunus oo xuutadi liqday oo kalluun calooshii ku galay oo haddana ka soo baxay oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray haddaad rabto cid dagaalyahanoo ummaddoodii u dagaalantay oo xoraysay rusul baa ilaahay ka warramaya nebi daawuud oo jaaluut la dagaalamay oo ummadda dhan ka xoreeyey niman gaalo ahaa yacni nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah ilaahay qur-aanka uu kaga warramayo oo ah ciddii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu gaar inoogu sii tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira nebi maxamed waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyahy ku dayasho fiican ciddii alle subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaamaha rajaynaysa ee damac kaga jiro ee ilaahay xusaysa subxaana wa tacaala waxaan ku soo koobayaa oo ilaahay inooga digayaa walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaq ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala waxaan ku soo koobayaa marka oo warkaygoo dhammi yahay idinkaa aad tusaalihii la rabay in lagu dayda idinku cid idinka liidata ha ku dayanina cid idinka liidata ha ku dayanina ha laydinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura laydinkaga daydo waa in dhaqan oo dhan laydinkaga dayda dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeq iyo waxbixin leh oo ballan oofinaya oo hoom weegiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo qumman in lagaaga daydabaa muhima markaasaa tusaalii dhabtaa noqonaysa laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato kalaaskana aad jirtid macallinkana been u sheegtid saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid kana aad dulmidid markaa tusaale noqon maysid tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay hadday waxbarashatay hadday dhaqantay hadday ballan tahay hadday hadaltay iyo run la sheegayo qof street forward markaad noqoto qof toos u socda modelka la rabay islaamigiina waa kaa walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga digayaa inaynan odhanin lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun inaynan bad example ka noqonin diinta waxaan aad uga cabsi qabaa inaynu inagu dadka diinta ka celinno nidhaahna ha soo gelina waayo diintu hadday innaga ina anfici weydo war idinkeeda anfacaysaa soo gala say suurtagal u tahy waa in dadka diinta aynuugu yeedhayna ay noqoto dhaqankeenu inuu dadka dacwo gaadhsiinayo waa laga yaabaa afafku inaynuguba adag yihin inaynan si fiican ba isu fahmin laakiin kaljarkaaga iyo dhaqankaagaa yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay meeshaad ka shaqayso meeshaad wax ka baranayso meesha aad joogto cidda aad la saaxiibka tahay markaad si quman ula dhaqanto qumanaantaadan baa dacwada sheegaysa warkaaleya ilaahay rumeeya ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples ha noqonina tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina ee waxaa noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga waxaa noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyey norwijigu saacankaa maaha waayo hoy waa laydin siiyey waxa cuntaanna waa laydin siiyey waxbarashana waa laydin ogolaaday intay doontaba ha noqotee
idan waynaynu ka abaalgudnaynana wixii wanaagsanaa aynu sidnay inaynu siino. diin baynu sidnay, islaamnimaynu sidnay, dhaqan fiican baynu sidnay, wixii wanaagsanaaye aynu sidnaynana waa inaynu siinaa. oo man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah. waa inaynu dadka u mahad celinaa, laakiin mahadcelku maaha inaynu inana barro sida sistamkooda loo buriyo, sida loo xado, sida been loo sheego, sida wax laysu weydaariyo. kaa maaha. waa inaynu ugundamkooda hanuunin karnaa. iyagu maanta ugundamkoodii way u taagla'yiin, sigaar iyo khamri iyo suuq iyo baliya baas iyo. waa in iskuulka 5 hablood ama 5 wiil oo muslima ay degan yihiin. waa inay iskuulkan dhaqankiisa bedelaan. waa inuu iskuulkani noqdaa model la yidhaahdo markaasi waxaa loo baahan yahay in dadka ajanabiga muslimiinta iskuullada lagu badiyo loo qaybiyo waa inay noqotaa. waayo waa model iskuulka wax taraya. laakiin haddaad noqotaan intaa meel ku ururtaan iskuulka joogtaan inuu aqoonta ka hooseeyo iskuullada kale, oo dhaqanka ka sii liito, oo waxbarashada ka sii liito, oo damiinnimada ka sii liito, meel kasta usii fool xumaataan, markaa islaamka aad ceebaynaysaa weeye. waxaa la rabay meeshaa 5 ku joogtaan ama 10 ku joogtaan inaad noqotaan 10 example oo dadka kale raadiyaan 10 kanoo kale in la helo. iskuullada kale inay u baahdaan markaasi waxaanu u baahannay 10 arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo, u toosi karo. waxaynu markaa isugu nimi waxa weeyaan inaynu modelkaasi muujin karno, kudayashadaas inaynu muujin karno, in maanta laga bilaabo aad garataan inay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa. inventionka dadka u keeni lahaydeen idinkaa laydinka rabaa. markaa maanta laga bilaabo idinkaa aad dadku ku dayan lahaa. markaa idinkaa laydin rabaa inaad noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara, oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara, oo aadoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiyaa. sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso, khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaadhi karo. markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen. markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee badbaadin lahaa ummadatan, dariiqa saxa u tilmaami lahaa. markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale. yani inaad safiir ka noqoto ummadda muslimiinta kale baa loo baahan yahay. amaa maanta in badan oo muslimiinta ka midi qaabkay uga dhaqmaan halka kani waa very bad examples bay ka yihiin muslimkii ka dambeeyey oo dhan, iyo diinta ay xambaarsanaayeen, iyo culturekoodi iyo dhaqankoodi iyo aragtidoodiiba very bad examples bay ka yihiin. waxaan ku soo koobayaa markaa, dad ba idinkaa u fiicanay ha jabina uun. yani dad ba idinkaa u fiican intaad muslim tihiin, laakiin cuqdadana infan dareera baanahay iyo kan baanahay iyo minority baanahay iyo waa lay xaqiraya waa la yasayada ka baxa. infan dareeraad tahay, muslima baad tahay, hogaamiyeah baad tahay, waxyigii samada sida baad tahay, qofkii la rabay dadku inuu ku dayda baad tahay. daadis waxaa la rabaa inay adiga kaa dhaadhacdo. haddaanay de adigaba kaa dhaadhacsanayn dadkama dhaadhicin kartid, laakiin adigaan rabaa inay kaa dhaadhacdo inaad tahay infan dareere muslim ah oo kii siday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadanba inuu ku hanuuno loogu talagalay, kii siday baad tahay. then you should be a good example. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. الله سبحانه وتعالى كاول مريض شيخنا محاضرة يقين في المسجد إننا أنا وانفع كل وقتنا ما يلي يعني وقتي صلاة ولا لاقي وقتي محاضرة ولا سؤال اللي مدرته فوحنا سؤال عيننا سؤالها أنت اسمنا على مرة سرعنا إن شاء الله بس أنا كار بلغ عضني محمد سؤالي فنيرض وكل هذا بالقصة لا يهدو يكسر درجة iska wada lagu maqlayaa meel yale. waxay leeyihiin 3 su'aalood oo kubadda ku saabsan. 2 waa isku mid. waxayna leedahay nin dhalinyaro haddii uu koox u ciyaaro oo dee uu noqdo xidig sidii David Beckhamkii laga sheekeynayo oo kale, ma dembi baa ku jira? waa tan labaad. su-aasha labaadna waxay leedahay waa isla iyadii waa banoonigii
laakiin gabdhaha muslimiinta inay banooniga cayaaraan lafteeda ma dembi baa ku jira? waxaa runtii u baahan inuu qofka muslimkii marka hore ogaado roolkaad nolosha ku leedahay waa maxay. ma inaad cayaartaabaa dunida u timi, yani maxaad u nooshahay? qofku hadduu garan waayo wuxuu u nool yahay, dan waxaad qabataba garan maysid. sheekh zandani la yidhaha cabdilmajiid zandani xafidahullah ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo la hadlaya nin brofessor oo ingiriis oo caana ayuu wuxuu weydiiyey waar ishu maxay tartaa buu ku yidhi. markaasuu yidhi ishu waxan bay qabataa saan bay qabataa wixii buu sharxay. human physiologyga wixii lagu sharxi jiray ama human anatomy ayuu sharxay. markaasuu haddana cudwi kala weydiiyey halkani maxay qabataa, wadnu muxuu taraa, kani muxuu taraa. markii dambe wuxuu yidhi cilmiga kan cilmi alwadaaif alacdaa baa la yidhaahdaayo wuu sharxay. wax waliba waxan bay qabtaan, saan bay taraan, saan bay taraan. wuxuu weydiiyey waxaad ii sheegtay jidhkaaga shay kasta oo ka midii waxa uu taro ma shaynimadiisuu qiimo ku leeyahy mise jidhku waxu taraa baan ku weydiinayaa buu yidhi. deetana wuxuu yidhi ishu hadday keliya meel taallo waxba faa'iida ma laha buu yidhi. waxay waxtar tahay markay dee jidh ku jirto oo jidhkay waxu taraysaa ku arkaya. waxaan ku weydiiye buu ku yidhi qofka oo dhan markaad jidhkiisi iyo ishiisi iyo wixiisiiba isku darto waa maxay isaga waxa loogu talagalay? sheegtay ishii wixii loogu talagalay, dhegtii sheegtay, lugtii sheegtay, qofkoo isku dhan maxaa loogu talagalay? iska aamusa wuxuu yidhi dee taasi waa falsafad. wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo kabtaadu maxay kuu dartaa? kabtii buu sharxay. wuxuu yidhi waxan bay qabataa, dhibta iga ilaalisaa, saatan baan ugu socdaa, caynkan bay qabataa. kabtii buu sharxay. markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo ma waxaad ileedahay iminka kabtaadaa kaa qiimo badanoo kabtaadu waxay tartana waa la garanaya, adigu waxaa tartana cidi garan mayso? yani waxa lagu abuuray adiga cidi garan maysa miya? kabtaadan waxa loo sameeyeyna waad garanaysaa miya? yacni qofka haddii hadafka nolosha uu ka lumo, waxa ka lumaya wuxuu qaban lahaayoo dhan, noloshoo dhan baa dhinac ka rarmaysa markaa. yani waxay isweydiinta le war maxaad u nooshay inaad isweydiiso. wakhti yar baad horta haysataa, 60 sano 70 sano meelaha kan, laga yaabo 15 hore inaad caruur tahay, waa un wax kontaneeyo sanaa baad haysataa. this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso? 50kaaga sano ma waxaad doonaysaa inaad boodboodo markaad kubaddu unu cayaarto u noolaato? kubadda waxaan kuu ogolay inay noqoto waxaad jidhkaaga ku kala bixiso oo aad exercise ka dhigato, laakiin maaha wax loo noolaado in kubad la cayaara. laba ma kala fahmaysaa? maalan maamaada ingiriisku maxay odhan jirtay? waxa wax loo cunaa maxay? in la noolaado. laakiin looma noolaado in maxay? in wax la cuno. socaynkaa maaha. cunadu faa'iiday leeda waxaad wax u cunaysaa inaad ku noolaato, laakiin ka warran qofka u nool inuu wax cuno uun, noloshiisaba ka dhigtaa inuu wax daaqo oo wax cuno uunoo fadhiyo. nolol maaha dee taasi. waxaa wax loo cayaaraa inaad jidhkaaga dhisto, laakiin haddaad u noolaato inaad cayaarto ka warran. haddaad u noolaato un inaad cayaarto oo kubadda erido, cayaartu hadday tay taa aad isku kala bixbixinaysa jidhkaaga ku dhisanayso waa roonta. ama inaad noloshaada ka dhigta cayaar kugulama talinayo. wallahu aclam. jazaak allahu khayr sheekh. su-aaluhu way badan yihiin laakiin waan soo yareynaynaa. laba su-aalood oo isku dhowey waxay leeyihiin qof wuxuu leeyahay maadaama sheekhu yidhi salaadii yaa meel qofku ula dhumanaya markii uu tukanayo, haddii aan sheekhood iskool dhigto ama aan shaqeeyo laakiin salaadaydii aan meel qarsoon iskaga tukado maxaa dembiga iga soo gaarahaya? tan labaad oo isla uun su-aalo isku dhowa, gabadha muslimadda ay dhar ku dhegan inay xirato maxay diintu ka qabtaa? salaadaas haddii aan marmar un tukado oo mar kale aan ka tago iyadana maxaa dembiga on mudanaya? salaadii muhiimadeeda waxaan u malaynaya in daris ku saabsan uu jiro. marka salaada in marmar la tukadayo in laga tago waxaan uga tegayaa sheekh cali maadaama daris salaada uu kaga hadlayo. cumuuman waxaad ogsoonaataa muslim macnihiisu waa maxay? yaa garanaya muslim? aslama
waa hoggaansamay ama waa isdhiibay. muslim macnaheedu waxa weeyaan kii alle isu dhiibay, kii hoggaansamay. inaad alle isu dhiibtay maxaa caddaynaya? waxaad tidhi ilaahay halka ugu fiican baan ogolay inaan maalintii 5 jeer dhulka dhigo. madaxaad dhulka dhigtaa, salaadu soo maaha. madaxu waa halka aanad ogolayn in saxar yari taabto. subaxii markaad soo baxayso waxaad ogoshay inaad maydho oo hagaajiso oo dhowr muraayadood isku eegto adigoo okay ah inaad dabad u baxdo. laakiin salaada waxaad ogoshay halkaa inaad dhulka dhigto. it means waxaad leedahay waxaan aqbalay inaan hoggaansanaado. qofka muslimkii markaasi waa inuu si dhaba u hoggaansanaada. hadii waaxida. salaadaada haddaad meel qarsoon ku tukato horta dee salaada waa saxaysaa. intaad tukanaysana muslim khayr badan baad. laakiin waxaan jeclay waxay tahay inaad adigu hormood noqoto. mithaal, haddii guruub aad tihiin meel jooga oo macallinkiina ama iskuulka rectorka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan gruubkan muslimiin baanunay meelaynu ku tukanno nadiifaanu u baahanay hana la siiyo, waxay u badan tahay in laydin siin doono. waxaa laga yaabaa inaanay qaanuunka ku jirin, laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc. rector walba iyo macallin kastaaba shakhsiyadiisu leeyahay, dadnimadiisa. waa laga yaabaa kani inuu kuu diido, laakiin ka kale inuu idiin ogolaadabay u badantay. waxaa jira maanta iskuulla le meel lagu tukado. ma dowladdaa tidhi ha la siiyo iskuulkaa meel lagaga tukado? maya. ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rektarkoodii iyo macallimiintoodii si loojika ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meel ay ku tukadaan oo macallin fiicanina wuu helay. dadka dee badh baa isagoo aan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantay. abi aalib muslimna ma ahayn, nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn, muslimna ma ahayn. yacni isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo. rektarkaaga ama macallinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal. wuu siiyey. ilaa maanta waa fatxi ay dadka muslimiinta heleen. haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato, kii kaa dambeeyun bay dhibtiina u taagan tahay. laakiin 10kiina hore haddaa culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey. muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshu u sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo. laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh. islaam iskuulka wax taraya waa inaad noqotaa. islaam sigaar aan cabbin, khamre cabbin, boodboodin, qaylin, macallimiinta caayin, ixtiraam xumayn, dadku ay soo dhaweeyaan waa inaad noqotaa. islaam moo dhalo macallimiintu ay soo dhawaystaan oo markuu macallinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiyo uu ku farxo, waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato miidhan. laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macallinku waa bashar, wuu kugu farxaya inuu ku arko inaad tahay qof quman oo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay. marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan oo ay ka tageen waxay ahmiyad leedayna sheekha ka warrami doona. meesha madowna waa ku asaxaysaa insha Allah, adiga Allah waa ka aqbalaya. laakiin waxa aan ka rabaa waxa weeyaan inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadiso inaad qudwo noqoto. nabiguna wuxuu yiri man sanna sunnatan hasana fil islam fala wajru man amila biha. ninka dariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nabigu yiri, qofka dariiq suuban isagu jideeya ajarkiisina wuu leeyahay. ciddii ku camal fashay ajarkooda oo dhanna waad leedahay. haddaad adigu iskuulka u horseeday in masaajid yar laydsiiyo ama meel yaroo fiican oo lagu tukado, waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslimee meeshaa salaadii u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato. mid kalena waan kuu sheegayaa, dadku isma leeka. qoladiinna hore xoogani haddaa waddada bannaysaan kuwo iska daciif ahayoo salaada qarqarsan lahaaba iyana soo dhiiranaya. qaar u taagalaydeen baa imanaya oo markii hore aan qarsan karaynin, laakiin markaa meel u sallaxdeen u hagaajiseen qaar badanoo markii hore la baqayay baa odhanaya wallahi de salaad waaba iska fiicanta waa la ogolay iskuulka oo idinku dayan doona. ta kale waxa aan rabaa inanta kale ee kalaaska kugula jirtee norwijiyadda aan muslimka ahayn inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa. waayo waa dacwa inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa. inay curiosity-gu qaado ay ku weydiisana maxaad la forforarsanaysay baan rabaa. iyadu su-aashu ay ka bilaabanto. nin muslim oo madow oo tagsiila ah maraykanka ayaa wuxuu yidhi 6 bilood gudahood baan 58 qof islaamiyey buu yidhi. tagsiga gudihiisaana shahaada ugu qabtay buu yidhi. 58 qof ayaan tagsiga gudihiisa shahaada ugu qabtay buu leeyahay. maxaad ku samaysaa baa la yidhi dadka. wuxuu yidhi airportkan dhigtaa tagsiga marka dadku soo fuulun baan cajalad quraana ku ridaa.
kolley yurub weliba scandinavianku waa dad yara xidhxidhan laakiin north america iyo meelahaas waa dad aad isaga furfuran cajalad qur-aanaan geliyaa buu yidhi waxay yidhahdaan waxaan fiicanay heesayaa muxuu yahay markaasaan idhahdaa buu yidhi waa the last word ka timaada xagga rabbi halkaasaan ka bilaabdaa buu yidhi sharaxayga waayo qofkan wuxuu rabuun albaabka cid u furta si uu ula hadlo uu diin ugula hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa iyo inuu halkaa ka bilaabo uu diidanaa cajaladaan u maasaaraa buu yidhi iyagaa curious noqdo su-aashay weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyahy idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inanta norwijiyadda ku aragto ku tidhahda maxaad samaynaysay oo dabeetana tidhaahda tan salaad baa la yidhaahdaa oo ilaahay baa laysugu dhiiba waa caynkaasoo aad halkaa uga sharaxdaa baan rabaa saa daraaddeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel madooda dadku tukato waa ka asaxaysa wallahu aclam insha allah anagoo waqti ilaalinayna 3 su-aalood ama 4 su-aalood oo isku nooc ah hal su-aal insha allahu tacaala aan kusoo koobayno ayaan kusoo gaabinaynaa su-aalihii marka haddii ay jiraan dad badan oo su-aalo soo qortay laakiin aan maqlin ha ka raalli aadaan waana la daaheen waana soo badiyeen insha allah sheekhow waxaad ka warantaa baa layidhi dimuqraadiyadda waxaan aragnay dad badan oo dimuqraadiyadda ammaanahaya islaamkana caayahaya horta farqiga udhexeeya labadooda maxay yihiin waa tan labaad ee kelimadda masiix la yidhaahdo ma masiixu dijaal baa looga jeedaa mise masiixi ciise aha baa looga jeedaa aan sii raacina insha allah waxay leeyihiin oo kale waxaa jira qof saaxiibka ah oo diinta caaya ilaahay caaya rasuulka caaya markaan kala hadlana hadal xun iigu jawaabo ma la dagaalami karaa arrintaas ma kula dagaalami karaa su-aasha ugu dambaysa oo aan muhiima laga maarmin iyadana waxay tahay wuxuu yidhi wiil baa wuxuu leeyahay iskoolka gabadh baan la fadhiistaa kursigaan isla fadhiisanaa aniguna ma rabee macalimadda ay ugu qasabta maxaan samayn karayaa sidaan ugu dambaabaya allah subxana wa tacaala kalaba garan waayo wixii su-aale dimuqraadiya waa su-aalo runtii mid waliba deriskeeda isaga baahnayd democracy waa kelmad laba kelmadood oo af griiga ka kooban oo haddii af carabi lagu macneeyo la mid ah xukmu shacab af soomaalina malaa shacab iyo xukumkaba de sidoodaynu u isticmaalnaa xukumkii shacabka ama xukumkii dadweynaha laakiin waxay yidhaahdaan professor muslim oo la yidhaahdo jacfar idriis ayaa wuxuu yidhaahdaa waa ereyga keliya ee magaci aan xaqiiqo lahayn buu yidhaahdaa yacni waa magac aan xaqiiqo lahayn waayo dunida lama arag buu yidhi meel shacab dhammi u xukumo ma jiro calaa kulli xaal waa nidaamkaasi ku salaysan waa nidaam siyaasiya siduu hadda u yaallo ee dunidu isaga dhaadhicisay arkaan ay ka tahay in la kala saaro 3 suldadood ama 3 maamul ee ah suldada qadaaga ama judiciaryga ama qolada maxkamaduhu ay gaar noqdaan suldada tashriica waxa u yaqaanin ama parliamentarianku uu gaar noqdo iyo sultada dowladnimo ama xukuumadda wasiirada iyo ra-iisul wasaare iyo waxay la nooca ay gaar noqdaan maanta nidaamka dunidu qaabku u yaallo waxay yidhahdaan dimuqraadiyaddu 3 qaybood baa loo qaybiyaa midi dunida kama jirto oo waa tii erayga dhabta ahaa uu sheegayay oo aan shacabku ha xukumo athenis baa ugu dambaysay bay yidhaahdaan xataa athenis markay ka jirtay bay yidhahdaan may ahayn dimuqraadiyad waayo shacabka o dhan looma wada ogolayn dumarku kuma jiri jirin caruurtu kuma jirin addoomuhu kuma jirin citizenshipka rasmiga qofkaan lahayn kuma jirin waxay ahaayeen koox yaroo kooban oo filosofara iyo in dadoo la socotay kaa marka lasoo dhaafo labada nooce kale ay leeday waa nooc la yidhahdo nidaam iljamciyaat hal dowlo oo qura dunida kaga dhaqanta switzerland waddanka la yidhahda weeyaan waa 3 suldadood oo koox qura isku wada hayso oo ah baarlamanka ayaa qudaaduna ka tirsan yihiin madaxweynuhuna ka tirsan yahay wuxoo dhammiba koox qura ku soo ururta deetana nidaam iljamciyaat nidaam la yidhahdo uu si kala daadega qaybteeda kale waa qaybtan loo yaqaano parliamentarianka oo iyana 2 qaybood u qaybsanta
qayb barlamentarian qayb ra'aasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa wanaag iyo sama ma yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu cod dheeri haysto waa xalaal hadduu san yahay oo aanu cod dheeri haysanin waa xaaraam ereygaa ma fahmi karaysaa maalan khamrigu waa maxay cid tidhaahda wanaagsan yahay maa jiro dunida ku nool maya laakiin cod dheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homofilku cid ammaantaa ma jirto laakiin hadduu cod dheeri haysto isagaa soconaya idan markii yurub diimuhu ay tiro bateen ee afkaarta tiro badatay ee wax waliba tiro badatay qaab ay u wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cod dheeridayaa leh dabeetana ciddii 51% heshaawun inay meesha maamusho islaamnimadu kaa way ka gedisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dejiyey laakiin haddaad si kale u egto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastoor la yidhaaho 2/3 marka hore ay ku dejiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa kaa haddii laysla dhaafo liberalismka oo caqiida la rumaysay oo aan marnaba laga bixi karin se iyagu rumaysayin ayuu hoos yimaadaa innaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa alkitaab wa sunna aan marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gedisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu aclam labadan qaybooda kale masiixu dajaal iyo masiixu ibnu maryam labadaba waa noqon karaa calaa kulli xaal ciisa almasiixna waa la yidhaahdaa dajaalkiina masiix waa yahay wixii intaa ka faahfaahsanna mar kale